ذلك سؤال waxay noqon kartaa oo hadafka nolosha ka leenay marka muxuu yahay ma inaynu cunno cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamus la helaaba life purpose kaagu muxuu yahay hadafka aad leedahay goolka aad nolosha maxaad u nooshay inaad maxay xaqiijiso qofka binaadamku inuu hadaf leeyahay meel uu socdo oo rabo inuu gaadho qof nooli inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cuno soo toosoo kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha lagu geeyo that's not a life nolol ma hataasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkeenu nolosha ka leenay waa maxay si markaynu ku guulaysanana inuu dhaano hebel noloshiibu ku guulaystay marka la waayana inuu dhaano hebel noloshiibu ku khasaaray ila labada midun haddaad nolosha hadaf ka leedahay meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaynaa waa guulaystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guulaysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay quraanka intaas oo aayadood ba ka soo arooray oo ka waramaya alfaa'izuun intaas oo aayadood ba ka waramaya alkhaasiruun wana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay marka labadaasi kala garato rabbi subhanahu wa ta'ala marka nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay يعني نولش هدانو تشيرين ثرمومتر اما بارامتر اما wax lagu qiyaasa hadaanad haysanin yani guriga dhererkiisu waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasano markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin hadii waliba isha ku eego wax sax ah soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaade waynu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas uu waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بغل سيديتني يشن بغل سيديتني يليح لبدا يدود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت no wax kasto oo nooli geeru dhadhaminaya muntaha alxayaati dunya weeyaan baa la leeyahay inta doonto joog way dhamaanaysaa wa innama tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya adduunka waa laga yaabo wax yar yar wa min amalika inaad dhadhamiso sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax kamid ah haday qadhaadheydna waa laga yaabaa nolosha wax kamid ah inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax kamid ah inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yiri taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaynaysaa laakiin waxa lagu dhamaystirayaa baa la yiri amalkoo dhan wixii aad qabato dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inma tuwaffaw wafa baa lagu isticmaalay waxa laydin oofinaya laydin dhamaystiraya ujurakum yawm al-qiyamah ba ilahay yiri maalinta qiyaama al-hayat al-ukhra hayat al-ukhra aakhira markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya qalin jabintaadi adduunka inta joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku hayso dhan side ku doonaha ahaado haddaad madax ahayd waraaqad buuxinaysay haddaad lacag haysatay waraaqad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqad nolosha dhamaanteed imtixaan bay heedaad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisi jawaabtiisi waxaad helaysaa baa lagu yiri maalinta qiyaamaha soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabta imtixaanka
سادرادت بإلهي وحولي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نينك قول قول استوى كانوا مرة بيري نار نيكي لغا نفطه زحزح نينك النار تهف لغا صوصية لغا إلالية لغا درقية وأدخل الجنة جنة لقية كاسب إلهي لي فقد فاز مقياس الفوز مركا واكن قور موقفك قول استي wuxuu guuleystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka